وزارة حنانة الحوالة runtii mudana wasiir shacabka reer Beeleed sida ugu diyaartiin una jecelihiin furitaanka wasaaradda xanaanada xoolaha runtii noo fur waxaan ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka si barasab ee ugu soo dhaweeyay wasiirkiisa bismillahir rahmaanir rahiim mudana wasiir aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad xariga ka jirtid maanta xaruntii xanaanada xoolaha ee gobolka Daadmareed iyadoo ay ruubayaro kala jiraan haddana waxay qayb ka tahay xaruntani 15 xarumood oo laga dhisay wadanka taas oo ka tirjumaysa ballanqaadyadii xukuumaddu ay ugu ballanqaaday in ay xanaanada xoolaha la xanaaneeyo laga daaweeyo taas oo halkana adeegii lagu daaweyn lahaa oo dhan la keenay la dhisay meelihii lagu talaalayay runtii waa tarjumaad aad iyo aad u qiimo badan bulshada gobolka mudana wasiir waa bulsho u diyaara barbarna taagan dowladooda iyo hoona har iyo habeen la garab taagay xaqoon kaaga mahadcelinayaa mudana wasiir ballanqaadyo badnaa taas oo ay ka mid yihiin xirfadoood oo loo tababarayo tuulooyinka meelaha ay ku badan yihiin xooluhu taas si ay eeriyadaas ay mid walba halkeeda loogu daaweeyo taasina runtii waa mid dhaxalgala oo wax weyn ka tari doonta xanaanada xoolaha iyo daaweyntoodaba waxaa kale oo aad iyo aad ugu faraxsanahay gaariga mobileka ah ee bayskiisu noqonayo magaala madaxda gobolka oo halkan uu ka gurman doono meel kasta oo dhibaatooyin xoolaad laga soo sheego taasina runtii gobolkan oo ahaa gobol xoolaad waxay u tahay ballanqaadyadii mid sideeda loogu dhammaystiray waxaan rajaynaynaa in naloo sii kordhin doono isla markaasna isuduwaha gobolka wuxuu wasiirku isna si gaar ugu ballanqaaday inuu gaarigiisii maamulka uu isna u keeno taasina waa mid dhammaystiraysa isla markaasna wuxuu ballanqaaday inuu wax ka qabto xafiisyada ballaaran ee wasaaradda xanaanada xoolaha leedahay sidii loo dhis loogu samayn lahaa runtii gobolka Daadmareed wasiirku maanta isagoo ay ka mid ah wasiiradii gobolka wax la taaban karo ayuu keenay dhammaan waanu gaarsiin doonaa bulshada gobolka ee tuulooyinkooda iyo degmooyinka kaleba in ballanqaadyadaas u imanaya iyo waxtarkaas loo samaynayo maanta oo ay taariikhdu tahay 27 waxaa noo sharaf ah inuu wasiirku xadhig ka jaro xaruntii gobolka ee caafimaadka xoolaha taas oo daawooyinkii kala jaadka ahaa ee xarumada ku dhaca xoolahoo dhanna ay halkan diyaar ku yihiin kusoo dhawow mudana wasiir markale shacabweynaha gobolka Daadmareed waanu mahadcelinahay soo dhaweynta in soo dhaweeyeen ilaa shalayto waxaa noo farxada inaanu furno maanta xaruntii xanaanada xoolaha ee degmada Oodweyne iyo gobolka Daadmareed insha Allah taala waxaanu rajaynaynaa inaanu ku wareejino xaruntan geedi inoogu wareejino insha Allah taala waxaanu keeni doonaa gaari mobile team oo halka Hargeysa ka hori lahaa halkan aanu uga dhigno oo qalabaysan xarun ugu gurmada dhammaan gobolada dalka iyo degmooyinka ay saamayso gaarigaas berberi inoo yaala insha Allah taala waxaanu doonaynaa inuu si hawlihiisa u fuusay inuu gaari u keeno juha xanaanada xoolaha dhaqaatiir ka soo qalin jabiyay jaamacadda Itoobiya iyo jaamacadaha Burco iyo Sheekhna inuu halkan afar dhaqtar ku soo biirino shan kamida dhaqaatiir ama kaws ama tababarayaasha xirfadda xoolaha oo degmooyinka ay saamayso gaar ahaan Harasheekh iyo Khaatumo iyo Xaaji Saalax iyo degmada Oodweyne inuu shantaa dhaqtar dawo la siiyo dawadaas oo ay kidkaas ay la wareegi doonaano dawada iyaguna ay ka faa'iidi doonaan kadibna dawo kala soo iibsan doonaan oo la kaabi doono marka hadda waa inaka khudbadeeni hoolkii ku soo dhamaysanay waxaynu furaynaa imika insha Allah taala waxaynu furaynaa xafiiskeeni iyo hawlqabadkeeni xanaanada xoolaha. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.